Sidee loo helaa fiisaha Norway? Ma u baahan tahay fiisaha Norway adigoo si waxbarasho ah ugu baxaya qiimaha fiisaha waa €60 oo kaliya. Waraaqo noocee ah ayaad u baahan tahay inaan ku hesho fiisada Norway? Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame. Nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Mahadsanid. Qorshaynta safar aad ku tegayso Norway. Sidaa darteed, tallaabada ugu horreysa waxaad u baahan tahay inaad dalbato fiiso. Waxaa jira noocyo fiisooyin ah oo aad isticmaali karto. Nooca fiisaha aad u baahan tahay waxay ku xiran tahay ujeeddada booqashada ama u safarka Norway. Ujeeddada safarkaagu waxay noqon kartaa safar fasax ah, safar shaqo, ama waxbarasho. Waxaa jira fiiso nooc kale ah oo loogu baahan yahay booqashooyin dheeri ah. Waxaad u baahan tahay inaad dalbato fiisaha dalku galka ah ee loo yaqaan Schengen Visa. Marka loo eego baahidaada safarka, baasaboorka waa waxa lagama maarmaanka ah ee aad ugu baahan tahay dalabka fiisaha. Hubso in baasaboorkaagu uu asal ahaan shaqaynayo ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda aad ku soo noqonayso. Way ku caawin lahayd haddii aad baasaboorkaaga nuqul ka samaysato si aad ugu soo gudbiso foomka dalabka. Fadlan xusuusnow in baasaboorkaagu waa inuu lahaadaa ugu yaraan 2 bog oo dhoofid hore ah oo meel kale aad hore ugu dhooftay. Markaad dalbanayso baasaboor muuqaal baasaboor leh, hubso inaad haysato sawirkii ugu dambeeyey aad gashay foomka codsiga. Tallaabada ugu horreysa waxaad u baahan tahay inaad buuxiso foomka dalabka gebi ahaanba. Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah qaababka si aad foomka uga buuxiso khadka tooska ah online-ka ama aad uga hesho nuqul ka mid ah UDE. Webkaasi waxaad ka heli kartaa foomka codsiga. Waxaad u baahan tahay in la caddeeyo tigidhkaaga safarka iyo soo laabashada. Waxaad u baahan tahay inaad heshid tigidhadaaga ku gaarka ah ee gelitaanka iyo bixitaanka labadaba intaadan dalban fiisaha. Haddii arday tahay, caddaynta shahaadada warqad oggolaansho dugsiga ama jaamacadda ee dalkaga. Fiiro gaar ah, foomka dalabka waa in la saxeexo. Dhammaan dukumiintiyada qasabka ah ee kor lagu soo sheegay, kuwa khuseeya, waa inay ku lifaaqan yihiin arjiga. Waxaad u baahan tahay inaad u gudbiso dukumiintiyadan safaaradda qunsuliyadda kuugu dhow ama kuugu habboon. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad soo gudbiso dukumiintiyo kale oo aan ka ahayn kuwa la cayimay. Sidoo kale, dukumiintiyadani waxay ku xirnaan doonaan nooca fiisaha aad rabto. Waad hubin kartaa dukumiintiyada dheeraadka ah ee loo baahan yahay waa kuwaasi. Booqashada dalku galka Norway. Fiisaha booqdaha ayaa kuu oggolaanaya inaad sii joogto aagga Schengen ilaa 90 maalmood ilaa 180 maalmood gudahood Norway ama dalal kale ee Midowga Yurub. Muwaadiniinta Itoobiyan, Kenyan iyo Soomaalida waa inay dalbadaan fiiso ay ku yimaadaan Norway oo ay ku soo booqdaan. Waa inaad u gudbisaa dalabkaaga safaaradda waddanka ama qunsuliyadda kugu dhow. Fiisaha ardayda Norway. Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee loo qaado fiisada ardayga ee Norway waa kuwan. Waxa ardayda ajnabiga ah ay tahay inay sameeyaan si ay u helaan fiisaha ardayga ee ay wax ku bartaan Norway. Isticmaal xiriirka dalbashada ee UDE. Bogga codsiga. Kani waa bogga rasmiga ah ee codsiga dadka doonaya inay Norway soo booqdaan, ku noolaadaan Norway, qaataan dhalashada Norway, ama qaata baasaboor Norway ah. Si aad u diiwaangeliso arjigaaga, u dhiib dukumiintiyada la xiriira dalabkaaga. Sii biometrics xarunta dalku galka fiisada ee kuugu dhow. Waxaa laga yaabaa in ardayda ay u baahan doonaan inay bixiyaan biometrics inta lagu guda jiro nidaamka codsiga fiisaha. Biometricgaaga ayaa dalalku u adeegsadaan ujeedooyin amni si loo aqoonsado dheeri ah. Inta lagu guda jiro hawsha arjiga, waxaad u baahan doontaa inaad ka qayb gasho waraysiga fiisaha. Oggolaanshaha deganaanshaha ee Norway ee daraasadaha ayaa shaqaynaysa ilaa inta waxbarashadu ku socoto. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad cusboonaysiiso fiisadaada sanad walba si aad u joogto inta aad ku jirto dhammaan barnaamijkaaga waxbarashada. Ka soo qaad in aad jeceshahay in aad joogto Norway kadib markaad dhammaysato waxbarashada. Waxaad u baahan doontaa inaad ka dalbato xafiiska socdaalka fiiso kale ama cusboonaysiin fiiso. Waraaqo noocee ah ayaan u baahanahay inaan ku helo fiisada ardayga?
Markii aad codsanaysid fiiso waxaad u baahan tahay inaad caddayso inaad naftaada taageeri karto inta lagu jiro barnaamijkaaga waxbarasho. Waa inay tahay inaad caddayso inaad haysato lacag kugu filan oo aad Norway ugu noolaato. Qiimaha nolosha waa 12,000 sanadkiiba, ha ahaato meel ka baxsan laga soo diro ama horeyba ugu jirtay koontadaada bangiga. Khidmadda fiisa. Qiimaha fiisaha waa €60 ee dadka waaweyn iyo €35 oo loogu talagalay carruurta dadoodu tahay 6 ilaa 12. Faahfaahin dheeraad ah oo khidmadda ah, fadlan tixraac shabakadda DEA Fiisaha Norway. Markaad iska diiwaangeliso arjiga khadka tooska ah ee portal, waxaad bixin doontaa qiimaha fiisaha. Ka hor gudbinta, ogow in codsaduhu waa inuu saxeexaa warqadda daboolka. Sidoo kale, fadlan la soco in safaaradda ay wax ka beddeli karto wixii qalad ah ee foomka ku jira. Uma baahnid inaad codsi kale gelisid. Waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaatay halkan. Haddii aad ka hesho muuqaaladeenna, fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.